kiimikada la sheegay in Suuriya loo adeegsaday Puntland oo dadaalo ardaydii ay abaartu saameysay dib loogu celinayo iskuulada waxa kale oo aan barnaamijka idinkuga haynaa biyana waxaan leeyahay bariiska markii biyo ku xidhmaan ay iskuulka xagga dambe ka soo galeen tagay iskuulka laga soo horjeeda ay ku soo urureen markii biyo batay diirka wax jin kari waayeen markii ay ugu soo fatayeen tagay biyo tusha laga mareen waa daadad ku soo rogmaday jigjiga oo saameyn ku yeeshay magaalada maxaa xiga haddii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu isxasilay falanqeynayaan idinkaga haynaa qodobada iyo kuwa kale oo ciyaari ay ka mid yihiin ayaadna barnaamijka ku maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray Ciise Xaaji Cabdullaahi nigo Faadimo Macalin oo karaya idinla socodsiinaya marka hore si aan ku bilowno qodobada wararka caalamka iyo Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe Xasan mahadsanid Faadimo Mareykanka iyo Ruushka ayaa si holle isugu maandhaafay arrinta Suuriya iyagoo ku sugan golaha ammaanka ee qaramada midoobay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa dalbatay in baaritaan wadajir lagu sameeyo weerarka looga shakisan yahay in kiimikada loo adeegsaday ee ka dhacay Dawma madaxweyne Bashaar al-Assadna waxa ay ugu yeedhay nin aad u qaab daran laakiin Ruushka ayaa difaacay Bashaar oo ay xulafo yihiin intaas kadibna madaxweyne Trump ayaa sheegay in waqti dhow uu qaadan doono go'aan argosya oo ka dhan ah xukuumadda Dimashq madaxweyne Trump ayaa arrin foolxun ku tilmaamay howlgalka ay hay'adda dambi baarista Americanka FBI ay ka samaysay xafiiska iyo guriga qareenkiisa shakhsiga macluumaadka ay hay'adda FBI gacanta ku dhigtay ee qareenka laga helayna waxaa ka mid ah lacagta la siiyay gabadha talishada ee jisha aflaanta anshaxumada ee sheegtay in ay la seexatay madaxweynaha Mareykanka maxkamadda dambiyada caalamiga ICC ayaa la weydiistay in ay go'aamiso inay xaq u leedahay in kale inay baaritaan ku sameyso oo qaado dacwadda ku saabsan dadka muslimiinta ee Rohingya ee sida qasabka looga saaray Myanmar iyagoo la geeyay Bangladesh boqolaal kun oo ruux ayaa u firxaday dalka Bangladesh oo kamid ah dalalka xubnaha ka maxkamadda ICC balse Myanmar xubin kama ah maxkamadda caalamiga ah nin hogaamiye sare ka soo noqday jabhadda faag ee dalka Colombia ayaa lagu xilay magaalada Baquta mas'uuliyiinta xiray ka jawaabayay dalab in la xiro oo dalka Mareykanka halkaas oo dacwada darooga ay kaga furan yihiin ninkaas oo magaciisa la dhaho Jesus Santridge ugu dambeynna mas'uuliyiinta dalka Liberia ayaa howlgal ka fuliyay xarunta wargeyska dalkaas ka soo baxa iyaga oo xilxilay dhammaan shaqaalihii muddo saacada wargeyska Front Page Africa ayaa aad u dhaliila dawladda wuxuuna ku eedeeyay xukuumadda in ay isku dayeyso inay wax u dhinto wararka dabagalka ee wargeysku sameeyo warkii dunidana waa naga intaas Faadimo mahadsanid Xasan waatan dhegeystayaal sidii aad warkeenaba ku maqlayseen madaxweyne Trump ayaa u sheegay wariyaasha inay kala cadaan doonto ciddii ka dambeysay weerarkii kiimikada ee loo adeegsaday Suuriya iyo in Mareykanku uu dhowaan jawaab ka bixin doono isagoo ka jawaabayay su'aalo la weydiiyay kadib markii warbaahinta kula hadlay aqalka cad ayuu madaxweynuhu sheegay in jiraan siyaabo kala duwan oo military oo arrintaasi looga jawaabi karo We are getting clarity on that. Who was responsible for the weapons attack? We are getting some very good clarity, actually. We are getting clarity on who was responsible for the weapons attack. We are getting some very good clarity. waxaan helaynaa cadeymo aad u wanaagsan waxaan haynaa jawaabo wanaagsan waxaan haysanaa kala doorasho badan military ahaan dhawaanna waanu idin ogeysiin doonaa militarily and we'll be letting you know pretty soon. dhanka kalena wakiilka Suuriya ee qaramada midoobay Bashaar Jaafari ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisu ay taageerayeen argagixisada Suuriya sida uu sheegay oo mas'uul ka ah weerarka kiimikada إننا اليوم نوجه اتهاما مباشرا إلى واشنطن وباريس ولندن. maanta waxaan si toos ah u cambaaraynayaa xukuumadaha kale ah Washington, Paris, London, Riyadh, Doha iyo Ankara inay siiyeen kooxaha Daesh, al-Nusra Front, Jaysh al-Islam iyo tiro kale oo ka mid ah ururada argagixisada hub sun ah oo kiimika ah oo loo isticmaalay shacabka Suuriya waxaan ku eedeynaynaa inay bilaabeen dildabareed caddayn been abuur ah iyo in si qalab ah ay dowladda Suuriya ugu eedeeyaan adeegsiga sun kiimika ah si ay isugu diyaariyaan duulaan waxdhanaa dalkan si la mid ah wixii ay Mareykanka iyo UK ay ka sameeyeen Ciraaq sanadkii 2003
ilawareedyo dhanka caafimaadka ayaa sheegaya in 10 qof lagu dilo weerarkaasi oo ka dhacay magaalada Duuma ee fallaagadu markaasi haysteen. haddaba jiritaanka arrintaasi iyo saameynta ay leedahay ayaa waxaan ka waraystay Xuseen Yoonis Xasan oo ah sarkaal sare oo arrimaha bini'aadanimada kana tirsan qaramada midoobay waxa uu ku sugan yahay dalka Ammaan. arrintani waxay imaanaysaa ku dhawaad sanad kadib markii si lamada islaan oo kale hubka kiimikada loogu weeray wadankaasi Syria. maalmihii la soo dhaafay xoogagan ka dagaalamaya Duuma waxay iska caabinayeen ama ay ku dagaalayeen inay maxaan ku yiraahdaa ay diidaan wada xaajoodkii ay la furtay dowladda Ruushka iyo dowladda Syria. markii ay taa diideen kadibna waxaa dhacay maalintii Jimcaha in aad loo garaacay magaalada Duuma isla markaana la isticmaalay hubkan kiimikada ah ee sunta klooriinka loo yaqaano ee gaaska ah. marka ayaa ka dambeeyay weerarkan kiimikada loo adeegsado Duuma. ilaa imika si madax bannaan uma caddayn karo laakiin waxaa la xaqiijiyey diyaarado ay leeyihiin dowladda Ruushka iyo dowladda Bashar al-Assad inay goobta ay duqeeyeen isla markaana dad fara badani ay halkaasi ku dhinteen. dabcan wasaaradda arrimaha dibadda Ruushku way diiday arrintaasi si lamada sidaas oo kale telefishinka wadanka Syria way diideen laakiin ilahooda waxay sheegayaan in diyaaradahaasi inay isticmaaleen gaaskan klooriinka ah. sidabaad doonaysaan inaad ku xaqiijisaan cidda rasmiga ka dambaysa haddii aad qaramada midoobay tihiin? waxaa jirta laan ka mid ah laamaha qaramada midoobay ee arrintani ku takhasusay waxaana si degdeg ah loo howlgelin doonaa khubaro iyo farsamayaqaano ku takhasusay arrintani in la geeyo goobta si markaasi ay usoo qaadaan sambalo wana kulmaan dadkii markaasi ku waxyeeleeyay ee ku dhaawacmay si markaasi baaritaan loogu sameeyo baaritaan yani cilmiyeysan oo iyadoo la isticmaalayo shaybaaro gaar ah in markaasi la isticmaalo. dabcan arrintaasi waqti badan bay qaadanaysaa laakiin baaritaan hordhac ah baa jiri doono arrintaasi sida ugu dhaqsaha badan la warbixin looga soo saari doono hadiiba la ogolaado in goobtaasi la gaaro ama dadka loola kulmo. Xuseen waxaad sharaxaad kooban naga siisaa suntan iyo waxyeelada ay leedahay. suntani waa sun maxaan ku raay kiimikal ah oo iyada ka samaysan gaaskan la yiraahdo klooriin ah. marka qofku marka ay gaadho isla markaasi waxa ku dhacaya naqaskiisa qofka ku dhigaya wuxuu awood u yeelan waayo inuu neefta inuu qaato ama neefta oxygen inuu qaato waa tan inta badan yani sababta dadku inay naafqabatoodaan isla markaana ay dhintaan. meelahan la garaacay waxa weeyaan dhul yani sanadihii u dambeeyey cunaqabateyn ay saarnayd oo ay ku yarayd maxaan ku idhahdaa xarumihii caafimaadka ama qaybqaybtood la baabiyey ama agab la-aan iyo qalab la-aan ay ka jirtay. marka dadka markii waxay u dhinteen badankoodu yani gargaar degdega aan lala gaarin ama qalabkii caafimaadka lagula taxawaan meesha oonin. marka waxa weeyaan guud ahaan waa sun yani isla markii xeebada jirka raacda oo dhiigaas yani raacda oo qofkiina u diiday inuu markaasi si xoriyadayna u neefsado. intaad ka warqabtaan adinka mise qof ayaa weerarkaasi ku dhintay? ilaa iminka waxaa la xaqiijiyey dad tirada udhaxayso 20 ilaa 100 qof inay ku dhinteen laakiin dhimashadu intaasi ay ka badnaan kartaa waayo waxa weeye dad fara badan oo halkaasi ku dhaawacmay baa yani waxa lasoo sheegaya iyaga laftikooda inay ku dhinteen xarumihii caafimaadka amba markii loo sii waday xarumaha caafimaadka dhexda inay ku dhinteen baa la sheegaya ilaa iminka 20 ilaa 100 inta udhaxaysa baan xaqiijin karnaa. kaasina waxa uu ahaa Xuseen Yoonis Xasan oo ah sarkaal sare oo arrimaha bini'aadanimada kana tirsan qaramada midoobay oo qadka telefoonka ugu waramayay. dhageystayaal waxaa inoo soo socda warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan halkaad nagala socotaan waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. wahagaag dhageystayaal iyadoo shalay uu iscasilay gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari kadib markii golaha baarlamaanka ay muddo toddobaadyo ka dhex taagneyd xiisad siyaasadeed iyo kala qaybsanaan ayaa waxaa la isweydiinayaa waxa xiga iscasilaada gudoomiyaha. su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiinay Cabdulaahi Xirsi Iroge oo
socday xilalka wasaaradda warfaafinta boostada iyo weliba isgaarsiinta iyo wasaaradda duulista iyo hawada haddana aan gudoomiyaha xisbiga xiis wariyaha BBC-da maxamed xaaji xuseen shiine oo waraystay ayaan marka hore weydiiyey bal siduu u arko iscasilaada jawaari. meesha waa la isqabtay waxaa la yidhi helihi jiray rabbi ka cabsi iyo rag iska dhicin isku meel ma galaan dadkii wax loo hambeeyo yaa meesha talada ku jirtaa sababtuna hadda bil buu ku dhawaaday waad la dareemi kartaa in ay wax badan dib u dhaceen caalamka oo dhan ay la yaabanaa iyo deeqbixiyayaasha caalamku marka aad baan usoo dhaweynayaa in muxuu ahaayey kalsoonidaas u timid in la is afgartay jawaarina gudoomiyuhuna uu iscasilay hadduu gudoomiyihiisa casilay bal halkan looga socon doono dowladda iyo gudoomiyahaba ku waajibka maxay tahay gudoomiyaha maadaama yaa ninka ugu waaya aragsan oo ka shaqeynaya dalka runtii sidii xoog badanna ku leh uuna gartay waxba meel aan loo dhaafin bay leeyihiin darbigan lasoo taabtay oo markaa isagu isku noqday inuu tanasul sameeyo waxaan filahayaa wuxuu samayn doonaa hadallo dhayd ah oo dawo u noqon kara dhaawacii gaadhay dadka iyo dowladda iyo baarlamaanka qaybsanaan dhexdiisa inuu daweeyo oo uu u tuso aniga go-aan ku gaaray inaan si muxuu ahaay halka u yimaado ka baxa meesha waxaana soo jeedin doonaa sidaan uga baranay siyaasi rugcadaawa weeye inuu yidhaahdo wada shaqeeya wixii horena ha laga bilaabo muxuu ahaay gelin xaaldhali ha laga bilaabo dowladda waxaa waajib ku ah in ay muxuu ahaay ayna u muuqanin inay wax iska dhayso adkaatay waxa weeye wixii waa hawdal waxaa la rabaa marka si hore loogu socdo in dowladdu ay tusto inay labadaba kuwii la jiray iyo kuwii kasoo horjeeday ay u tahay xukuumad u tahay madaxwa dadkiina ayna noqonin tuka cambaar leh oo maxaa la soo dhaweeyo oo layihahdo waxay ugu jirtaa dantu dalkeenna iyo dadkeenna inaan gacmaha isqabsanno horena u soconno waa la isqabtaa oo carab iyo dowladda maqabtaane wixii aynan dib ugu noqonin aan isku qabanay waxa inoo dhiman oo u baahan inaan ka wada shaqeyno sida garsoorka dhisidiisa amniga dalka oo la soo celiyo maxkamad dastuurka oo la dhiso xisbiyadii oo la hormariyo arrimo xoog leh baa yaa u yaalla markayna hor socdaan marka waxaad leedahay arbacada gudoomiye hadalkiisa waxaa laga filan karaya ee dadku ay ka sugayaan waxyaabahaas inuu noqdaa ka mida wax weyn baa laga fili karaa waxaa laga fili karaa laba shay weeye dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin inuu maclaysan yahay anu ma qabo anu waan qabaa maadaama aan garanayo gudoomiye professor jawaari oo nin dad badan isyaana ayahay soo shaqeeyey 57 sano iyo ina aqoon-yahana uu ogyahay marxaladda dalku marahayo inuu ku hadli doono sidii nin aan cidba la diririn oon aarsanaynin oon wax iska dhicinaynin ee raadinaya xal iyo inuu caafimaad dadka dhexdiisa ka abuuro kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi xirsi cilmooge oo ah gudoomiyaha xisbiga xiis oo u waramaya BBC-da maxamed xaaji xuseen shiine dhegeystayaal waxaa noo soo socdaa falanqeyn markaasi ku saabsan sida ay suurtagal u tahay madaxweynaha Nigeria ee sheegay in mar kale xilka uu isku soo sharaxi doono hase yeeshee haatan daadad habeen hore kusoo rogmaday magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa khasaare naf iyo maalba leh waxa ay gaarsiiyeen magaalada daadadkan ayaa la sheegaya in markii saddexaad ay magaalada khasaaro markaasi u geysteen warbixin arrintan ku saabsanna waxaa Jigjiga ka soo diray wariye Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam magaalada Jigjiga waxay ku taallaa meel god ah oo buurana ku hareeraysan yihiin iyo meelo taagan taas waxay ka dhigan tahay in ay u nugushahay daadadka iyo weliba roobabka habeen hore ayay ahayd markii dadku qaylo iyo buuq hal mar ay isku dareen markii toga faafan iyo weliba laagta bilbilisa ay keeneen daadad aad u xoog badan taas oo magaalada khasaare naf iyo maalba u geystay qaar ka mid ah dadkii khasaaruhu soo gaadheen ayaan waraysi la yeelanay waxaan ugu horeynay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Xuseen Giireen Mugane Nimcaan Sheekh Cabdi Xasiin hadda kulli dugsiga intiisa badan uu gaadhay marka laga sheekeynaa 8 galaas ayuu gaadhay la oran karaa bakhaarka buugta oo kale librariga oo kale
sida hadda qaybaha special needka ama ardayda baahida gaarka qabto ay u dhigtaan oo kale uu gaadho loonka markaa kala bar dugsiga uu gaadhay saamaynta kale xagga gidaarka dugsiga deyrkiisa oo kale isagana isku wareeg uu dhacay baa la oran karaa imse jeer ayuu daad ku soo galay xiliyadan oo kale wuxuu soo galay sidan oo kale kulley waa markii koowaad horta uu sidan dugsigu noqday laakiin laba mara hore ayaa jirtay una sidan oo kale dhowna saamayn sidan xoogga loonoo samaynin ayaa jirtay marka hadda waxaa la oran karaa adigu 3 jeer ayuu dugsigu hadda sidan ku dhawaaday laba hore iyo hadda oo ugu darantahay kulley xaaladda hadda uu dugsigu ku jira nin magaciisa ayuu sheegay Amiin Yunis ayaa gurigiisa aan ugu tagay isagoo dhoobo badan iyo dhibaato badan ay ka dhex muuqato haddaba waxaan weydiiyey bal sida ay ku soo galeen biyuhu iyo dhinaca ay kaga yimaadeen wuxuuna ku jawaabay sida tan biyahan waxay ugu yimaadeen biriishka markii biyuhu ku xidhmeen ay iskuulka xagga dambe ka soo galeen kadibna iskuulka laga soo horjeeda ay ku soo urureen markay biyuhu bateen diirka wax jin kari waayeen markii ay ugu soo fateeyeen dabna biyuhu dusha laga mureen alxamdulillah hadii adduun wala bal iska helaaye wax badan ku dhintay ma wax diir ku dhimay guriga bal waxa laga warantaa markii biyo soo galay saahayeen ma jiifteen ma soo jeedeen qaylaan qashan sigaayad xaalku wallahi qayliyo digniinta ma aan maqal hase ahaatee gabadhayda oo maqnayd baa albaabkaadu garaacday dabeetana markii albaabkaadu garaacday ayaan degdeg u furay biyaha la hormaraya biyaha badankoodana diirka iskuulka ahaya diirkuna dee biyuhu ka soo kaajiyeen diirka waxaa la keenay oo dabbiya ka keenay diirkii laga soo horjeediyey biyihi xagga tabay socon ama xagga dooxana kor buu soo qaaday xaggii suuqa oo dooxii biyuhu marayeen baa xidhmay oo oolan arrintan amir waa arrin lagula waaqabo laakiin dowladdu maxay sababtay maxaad u malayn sababtay weli xal uga gaari leedahay arrintan waxaan malayn karayaan dowladda ma fudaysatay maadaama cashuur la bixino gurigana gurigii hore ee magaalada shiisha asaasantay uu ahaa tabna tableeyey dhowr goornaan dowladda hoose tagay baan ku yidhi balkale halkan wax ka qabta iminkana inaan ka guulaalan doonaya haddii alla ka dhigo hooyadan oo magaceeda igu sheegtay Aamina Mahad ayaa waxay ii sheegtay in wax carruurta aan ahayn uu bixin isla markaana bannaan ay ka fadhiyo gurigeedii هذا اللي راح نقول لا دون بالله بحد واحد صديق يا الله ولا بحقات تشينجون راح نقول يا عورك في النقطة تقول وترى هذا كور waxaan kala maaragtay ما هو الراب كنا هنا نعرف طالش وداوي الفين نفس ما نقول عيال كان ربي كقولنا ما markii ugu horeysay dabashana ay magaalada ku soo rogmadaan waa markii saddexaad inta la xusuusan yahay haddaba dadku waxay ku dareynayaan wax ka qabasho la'aanta dhibaatada soo noqotay ee xukuumadda dowladda Soomaalida Abdinaasir Sheekh Maxamed Xikam BBC Jigjiga cabdinaasir aadayuunad siinay dhageystayaal ayaa qodobka saygooda kasoo dhibta waxaana ka mid ah maxamuud warsame oo jooga Gabiley waxa uu leeyahay maamulka magaalada iyo xukuumadda waxaa la gudboon in bulshada ay ka wacyigeliyaan sidii looga sii tabaabashaysan lahaa xilliyada roobabka sidoo kale Ilhaan Cumar oo joogta Garowe waxa ay leedahay daadadku waa kuwo khatar badan waxaana laga rabaa in dowladda deegaanka ay markii hore u digto dadka si ay uga durkaan godanada iyo meelaha khatarta badan ee biyuhu ay markaasi galaan wanaag haatana madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa shaaciyay in mar labaad isku soo sharaxayo doorashooyinka madaxtinimo ee dalkaasi kuwaas oo lagu wado inay dhacaan sanadka soo socda tan ayaa soo afjaraysa muddo bila ah oo hubanti la'aan ay ka jirto inuu soo sharaxayo iyo in kale haddaba iyadoo caafimaadka madaxweynaha in muddo laga dooranayay ma laga yaabaa in Buhari uusan mar kale xamili karin xilka culus ee madaxtinimada su'aalaha iyo kuwa kale ayaan weydiinay Dr. Abdiwahaab Abdisamad oo ka faallooda arrimaha Afrika qadka telefoonka ayuuna igu waramay محمد بوهاري inkastoo la leeyahay caafimaadkiisa laga deerinayo haddana waa nin runtii sharaf ku leh waddanka maartay maxaa yeelay ninkani wuxuu aad ula tacaalay yani musuqmaasuqa waddanka reegaadiyey wuxuu la tacaalay oo yareeyo weetay nimanka loo yaqaano Boko Haram ee ka dagaalamay waqooyiga waddanka oo inta badan qabiilka asagu ka soo jeeda oo muslimiinta ah waxaa kaloo intii ninka lagu amaanayaa institutionada waddanka maartay inuu aad u dhisay maxaa yeelay xilligii uu ka tilmaamay ninka asaga ka horreeyey Olof Obasanjo iyo ninkii ka horreeyay macnaha Jonathan Goodluck inta badan yani dalka reegaadiyey waxay ka imaan jireen hay'adaha dowladda marka ninkan hay'adaha dowladda ay runtii ayuu aadaabtii iyo akhlaaqdii kusoo rogay laakiin kobaca dhaqaale ayaa mooda runtii inay xawo keena lexday iyo maaragtay yani inuu shaqo u raadiyo dhalinyarada meelaha shaqo la'aanta baahday waddanka jirta taasoo weli wax badan uusan ka qabanin in muddo
leedahay caafimaadka madaxweynaha waa laga dayranaya marka ma kula tahay 5 sano oo hadda kadib inuu xilka sii hayn karo oo uu xamili karo inta badan hadda waxaan u malaynayaa sanadkii aan soo dhaafnay ayaa lagu soo daweeyay waddanka Ingiriiska muddo badan oo ku maqnaa marka hadda caafimaadka uu soo taraya aad buu soo fiicnaanaya oo soo taraya ninkani run ahaantii dad badan oo siyaasadda Nigeria indheeya maadaama caafimaadku uu yahay waxa wanaagsanaan lahayd in asaga uu ka dugo laakiin dad badan oo Nigerian ah waxay leeyihiin ninkani waa role model mana waxa weeyaan markay noqoto yaala tacadida musuqmaasuqa waa in lagu yeelan karayo marka hadduu wasiiro adag uu sameeyo haddii institutionada uu dhiso hadduu discipline uu sii macnaha nidaamka dowliga ah oo marka yani institutionada dhis uu ka taga hataa uu ka dhinto waydi waa iswadi karayaan laakiin hadda waxa weeye bilo weeyaan institutionadu soo dhisay yani waxa weeye discipline walagaa marka waxay leeyihiin oo yani ka taga macnaha yani hadda weli yani waa koobahay weli hadda dabcayaan marka xiliyaada dusaan ugu tago Nigeria waxay ku noqonaysaa meeshay ka imaaday dadka qaar Buhari ku dhaliilaan in wax badan uusan ka qaban Nigeria oo sidaad sheegtay dhinaca dhaqaalaha ay ka mid tahay oo waatiin UK arrimaha caafimaad uga dabalaabanay soo lagama yaabo in tani ay saameyn ku yeelato ololihiisa hadda runtii waxyaalaha imanka ku taamay waxa kamid ah diyada la doorto in macnaha yani uu dib u habeen ku sameeyo yani sida waddanka laga dhoofiyo in yani waxa weeye taqriiban ugu badan dalka 130 wuxuu ka soo galaa sida ka soo galaa wuxuu doonayaa marti dhinaca waddanka wax uu qabto oo marka dadka waddanka yani dadka Nigerian inta badan dad beerlaya in dhinaca beeraha wax ka qabto waxa uu doonayaa inuu waddankan ay qaataan East Asia sida Singapore iyo waddanka loo yaqaan Malaysia inuu keeno waxa loo yaqaan small scale industries yani shaqooyin oo yani aad waddanka ku soo badiyo oo marka shaqo abuuri karayo oo marka ka dabageyn karana yani waddanka Nigeria wadamada East Asia ka dabageyn kara marka inta badan waxa xoog saaraya dhinaca beeraha dhinaca khadamaadka iyo dhinaca warshadaha si marka loo qabto dadka Nigerian runta cadaa ka soo baxay shaqalaanta ay shaqadeeyaan oo mid iminka ka go'aamay hadda ashal istaan soo dhaafno aad u tacaalay dhinaca cadliga waxa cadliga inta badan ku ka qabtay boko haram waxa ka soo yani aad u weeqay waxa ka saxta gabdhihi jibok ee laftuuda qaar baa soo ceshay in balamadii qaad oo Allah ku dira qaar baa u sameeyay ay dareemaysaa marka 4 sano ugu horeysay inta badan oo sarina dhinaca wuxuu saaray security-ga ama amnigu saarayay laakiin wuxuu doonayay dhinaca dhaqaalaha uu ka saaray doonayay maartay dadka reer Nigeria marka ay dhinac walba ka eegaan ma kula tahay inay soo dhaweyn doonaan in Buhari uu soo sharxo markale waxay shaki lahayn in ninka taageero badan u leeyahay waxaan shaki lahayn hataa dadka kiristaanka dad badan kamid inay taageerayaan waxaan shaki ku jirin in military runtii aad iyo aad maarto maqsad u yahay oo macnaha asaga ay taageero doonaan weli taageero xoog leh ayuu Buhari haystaa maxaa yeelay ninkan musbaas lagu yaqaan maahan hantidad lagu yaqaan maahan وانا معنا عادي ديسبلين وانا دون انه لقى سكتها marka waxyaabaha Nigeria ay filan taawayaan hadii la kala yimaado inta qorobto yimaado yani u yimaado dheeraa doonaya xoolaha dadooda marka waxay ka doorbidayaan ninkan ay ka doorbidayaan marka waxaan filayaa weli wuxuu leeyahay taageero xoog leh waddanka gudihiisa kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiwahaab Cabdisamad oo ka faallada arrimaha Afrika oo qadka telefoonka igu warramay ciyaariyaha dhageystayaal goordhow maqli doontaan halkaad nagala socotaan waa BBC وطنية ciidamo boolis ah oo badan ayaa la geeyay agaarka garoonka Itixaad Manchester City ay caawa ka dhici doonto ciyaarta lugta labaad ee horyaalada Yurub ee ay kooxdaasi la dheeli doonto Liverpool lugtii hore ee ciyaarta toddobaadkii hore ee markaasi ka dhacday garoonka Anfield ayaa meel u dhow garoonkaasi waxaa lagu dhagaxiyay baskii wada kooxda Manchester City waxaa caawa u yaala hawl adag maadaama lugtii hore looga soo badiyay 3-0 kooxda Tottenham ayaa iyadana doonaysa inay ka codsato maamulka horyaalka Ingiriiska in weeraryahankeeda Harry Kane loo qoray markaasi goolkii ay uga badisay kooxda Stoke Sabtidii la soo dhaafay waa in markaasi loo qoro Kane ayaa ku doodaya inuu markaasi madaxa ku taabtay laadkii xorka ahaa ee uu soo tuuray Christian Eriksen balse goolka si qalad ah loogu qoray isla Eriksen haddii weeraryahankaasi loo qoro goolkaasi ayaa waxa uu 4 gool oo kaliya ka hooseyn doona Mohamed Salah oo u dhalay Liverpool waana badanayo inuu ku guuleysan doono kabaha dahabka ee xilli ciyaareedkan tartankan ciyaaraha barwaaqo sooranka ee ka socda magaalada Gold Coast ee Australia ayaa maanta waxaa la tartamayaa in lagu guuleysto 26 biladood oo markaasi
dahab ah. ciyaarihii ayaa intaa uga gudbaynaa haatana Puntland. arday ka badan 24,000 ayaa lagu soo ramayaa inay waxbarashadoodii saameyn ku yeelato abaartii dhufatay Puntland. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa BBC-da u sheegay in ardayda qaybtood ay iskuulada ka hareen balse ay haatan ku howlan yihiin sidii ay dib ugu celin lahaayeen. agaasimaha ayaa arrintaas waxa uga waramay wariye Axmed Awil Jaamac. abaartu muddo way soo jiitanaysay muddana waa la soo tacaalisay wasaaradda waxbarashadu waxaan gacanta ku haynaa ilaa 20,000 oo arday baan gacanta ku haynaa oo iskuulada weliba u badan dhanka xeebaha iyo magaalooyinka tuulooyinka oo aan incentive-ka ama lacagta la yiraahdo top-up-ka oo lacagta yar macalinka loogu daro mushaharkiisa iyo waxaan isugu daraa ardayda maaragtay inaan ka bixino iskuul muxuu ahaa fiiga waxaan kaloo jira inaan ka caawino iskuulada dhanka maaragtay maamulka iyo waxyaabaha marka ay u baahan necessary-ga hadii noqdo dhanka biyaha iyo howlaha iskuulo badan waa ogtahay waa soo kordhino barnaamijkan school feeding la yiraahdo ama quudinta carruurta marka arday ay saamaysay oo waxbarashada iskaga tagay miyaa jira oo aad ogtihiin arday ay saamaysay marka hore way jiraan oo marka mashruuca aan eegayna tirakoobkiisa arday badan ayay saamaysay oo saameyn ku yeelatay oo magaalooyinka soo galay laakiin waxaan ka daba tagnay oo aan raadinay ardaydaas iyo meelaha ay ku dambeeyeen waxaan hadda ururinay ilaa 12,000 arday oo magaalooyinka soo galay oo waxbarashadaas iskuullada aan dib ugu celinay waxaan ka bixinaa hadda 2,600 arday baan hadda ka bixinaa magaalooyinka waaweyn oo dhawaan mashruuca aan ku daray qayb kaleeta hadda iyadana waa wadnaa oo muxuu ahaa aan rabno inaan ka bixino oo weliba gabdha u badan waxyaabaha aan iskuullada ugu celinayna ardayda waxaa ka mid ah dhibaatada dhacday sidaa la socota imtixaadka waa la baranaya xataa waxa weeye ardada dhibaatada ku dhacday abaaraha ah qaybtooda wasaaradda karaysay imtixaanaadkooda inay ka qayb qaataan oo ay markaas aysan uga harin dhawaan arrimahaas oo dhan wasaaradda waxbarashadu way ka shaqaynaysay runtii waxaan u maqaanaa iskoolo badan ee isxireen abaartii inkastoo la sheegayo in qaybtooda hadda ay dib u furfurmayaan marka taas wax ma kala socotaan iskuullada markii hore abaarta kow ahayd sanadkii ugu horreeyay abaarta oo way iskuulo badan baa isxiray laakiin sanadkii labaadba waana furay sanadkaana way furan yihiin runtiina waxaan hadda wadnaa barnaamij guud oo la yidhaahdo inaan iskuullada ruuxooda resiliensiga ama adkaysiga abaaraha qaabkay u samayn lahaayeen waxaan ka caawinaa dhanka biyaha baraagaha waxaan ka caawinaa dhanka school feedingka ama quudinta ciyaalka waxyaabahaas oo dhan waxay noqotay dhismayaasha oo kaleeto oo aan kordhinay xafiisyada oo aan u diyaarinay qalabka ardayda iskuullada ku dhiganayaan iyo aan kordhinay waxaa kaloo jira inaan raadino ardaydaas meelaha ay magaalooyinka waaweyn ka tageen iyadoo ruuxyada oo scholarship macnaha ardayda la siinayo primary ama secondary waxay tahay in fiiga laga bixiyo iskuulka laga bixiyo oo waalidka loo diro waalidka ayaan ka caawino waxaan hadda diiwaangelinay ilaa 2,600 oo waalid baan diiwaangeliyay oo laga bixiya waxyaabaha dadka familiga masaakiinta oo aan heli karin oo dhan laga caawiyo ayay ka mid tahay iskuullada ay dhigan lahaayeen laakiin sidaas ay tahay oo haddana aad ka sheekaysa waxqabad badan oo aad qabateen ama aad rabtaan hadda inaad ka howlgashaan waxaa jira soo maaha meelo aydan weli gaarin iyo iskoollo aydan garanaysaa siday tahay oo wax looga qaban oo qaybtooda ay furan yihiin maya hadda maalin dhaweeto kii ugu dambeeyey iskuulkii ugu dambeeyey meel la yidhaahdo ku yaalay qaanlaaye oo naloo soo sheegay kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland oo u waramaya wariye Axmed Awil Jaamac. idaacadii ayaa dhageystayaal intaa inoogu eg tan iyo labada duurnimo sidaa iyo nabadgelyo.